Wikipedia iyo Reddit iyo qaar kale ayaa arbacadii hawada ka baxay waxay ka dudsan yihiin qaanuun cusub oo adag oo Kongareeska Mareykanku soo jeediyay in wax looga qabto dhaca internetka lagala soo dago waxa aadan iibsan Google iyadoo hawada kama bixin waxay sacabashadeeda ku soo bandhigtay barteeda bilayska ah kulligood waxay ka walaacsan yihiin hindisahan oo loo soo gaabiyo SOPA iyo PIPA oo ay u haystaan inuu horseedi doono faafreeb qaanuunkan waxa taageersan istuudiyaasha ugu muhiimsan Hollywood iyo sharikado kale waaweyn qaanuunka waxa la doonayaa inuu joojiyo ganacsiga aan sharciga ahayn ee internetka oo ay ka mid tahay isdhaafsiga filimada aan xuquuqdooda la haysan qolyaha u dhaca kombiyuutarada ayaa isku dayay inay fariisiyaan baraha internetka suuqa saamiyada Israa'iil iyo waliba barta internetka sharikada qaranka Israa'iil ee diyaaradaha El Al bar internetka oo Israa'iil laga leeyahay wararka faafisa ayaa loo sheegay in weerarkan ay soo qaaday kooxda Falastiiniinta taageerta ee Nightmare Group talaabo u muuqata inay tahay argoosi ayaa koox Israa'iil taageerto oo isku sheegtay in la yiraahdo IDF team waxay weerartay baraha internetka ee suuqyada saamiyada Saudi Arabia iyo Abu Dhabi kooxahani waxay sii xoojiyeen cabsida laga qabo in siyaasad darteed dagaal internetka dhexdiisa ah uu ka dhaco gobolka warbixin cusub oo rasmi ah ayaa sheegaysa in ka badan nus bilyan ruux ay internetka ku isticmaalaan dalka Shiinaha inkastoo ay sii kordhayaan tirada dadka internetka isticmaala haddana dadka Shiinaha marka loo fiiriyo 40% ayaa isticmaasha internet taasoo aan xataa gaarayn kala bar saamiga dadka reer galbeedka ah isticmaala internetka isla markaana internetka Shiinaha waxa aad u kontrolsha dawladda shimbir ma aha diyaaradna ma aha waa aalad dabaysha tamarka dhalisa sida kuwa kaleba u shaqeeyaan waxay koronto ka dhalinaysaa dabaysha wareejinaysa baalasheeda dulmaadkeedu wuxuu ku meereysanayaa goobo dhulka u jirta 600 mitir iyadoo ku duulaysa xawaare gaaraya 240 kilomitir saacadii quwadda ay dhaliso waxay ku diraysaa fiilo dhulka ugu rakiban Makani Power oo samaysay sancadan waxa maalgeliyay Google iyo waaxda tamarta dawladda Mareykanka Makani waxay sheegtay in rajaynayso in abitaydan tamarta dhalinaysa ay suuqa soo dhigi doonto iyadoo raqiis ah dhalinaysana koronto la isku halayn karo 2015 ay rajaynaysaa in ay taasi dhacdo